maalinta saxaafadda caalamka ayaa habeenkii xalayta ahaa lagu xusay magaalada qaahire ee dalka masar. xafladan oo ay kasoo qayb galeen suxuufiyiin dhowr ah oo kasoo shaqeeya gudaha dalka Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ahaa lagu qabtay hoolka Wonderland ee ku yaala madiinada Nasr. xafladan oo soo qaban qaabiyay milkiilaha website-ka Daniel asigoo sheegay in website-ka 9 uu jirsaday isla markaana la aasaasay maanta oo kale oo ku beegan maalinta saxaafadda caalamka. ugu horeyn xafladda waxaa ka hadlay Xuseen Saxnuun oo ah wariye ka soo shaqeeya magaalada Muqdisho qaas ahaan raadiyada afyimada ee ku yaala magaalada Muqdisho isla markaana gudoomiyaha jaaliyadda reer Muqdisho ee magaalada Qaahira ayaa ka dhawaajiyay in sanadahan ay geeriyoodeen wariyaal badan oo nuxur ku dhaxlaha bulshada halka uu yiri qaar kalena in la xabisay. Xuseen Saxnuun oo taa ka hadlayna waxa uu yiri gabadhii ugu horeysay dhinaca saxaafadda oo si kas ah loo dilo waxay ahayd Duniya Muxyidiin oo aynu ka wada shaqeynay idaacadda Hon Afrique. sidoo kale waxaa ka mid ahaa agaasimihii warbaahinta Hon Afrique Ali Imaan iyo waliba agaasimihii idaacadda codka caasimada Mahad Ahmed Cilmi. sidoo kale waxaa si bareer ah oo kas ah loo dilay xilligii hogaam kooxeedyada iyo maxkamadaha ay dagaalamayeen Bashiir Nuur Geedi oo isagu ahaa kusimihii Radio Shabeelle. sidoo kale dadka sida kaska ah loo dilay dhawaan waxay ahaayeen wariye Maxamed Mayow oo isagu ka howlgalayay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye. sidoo kale waxaa ka hadlay milkiilaha website-ka Daniel Axmed Sheekh Cali Kalaayo oo asaga soo qaban qaabiyay kulankan caawa oo weelisay laba munaasabadood oo ah maalinta saxaafadda caalamka iyo website-ka Daniel oo 9 gu dirsaday isla mar ku beegan tahay maanta oo kale. Axmed Sheekh Cali Kalaayo ayaa ah milkiilaha website-ka Daniel ayaa sheegay in dad badan ay dhibaataysnaa wax loogu qabtay saxaafadda waxuuna farta ku fiiqay in mar walba ay muhiim tahay in saaxiib ay noqdaan saxaafadda iyo bulshada. waxuuna yiri saxaafadda mar walba ay hormarisaa waa bulshada dadka tabarta yar. sidaan la socon website-ka Daniel inta uu jiray waxaan xusuusanaa dhowr qof oo ku dhibaataysneed aan soo gelino website-kaas inay lacag loogu aruuriyay in qaarkood wadamada reer galbeedka la geeyay lagu soo daaweeyay ayagoo caafimaad qaba reerkooda ku soo noqdeen. ayada xataa wicnaha waa horumar ma jiri lahayn haddaan la heli lahayn saxaafadda. marka wuu dareemi karaa wicnaha saxaafadda dhibka ay lahayd. annaga Soomaaliya dadka inta badan intiis joogi jirta Soomaaliya waxa la yiraahdaa xidigta October bis ayaa furneed. xidigta October waxay ka hadli jirtay kacankaas wax jiro waxa laga hadli jiray horumarka warshad bay furtay dawladii jid bay dhistay kacankii uu laba kacleeyay lama sheegi jirin macnaha ninka la dilay ama ka gaal shiraha ku dhibaataysan ama ninka la dhacay lama sheegi jirin. Sheekh Yuusuf Xuseen Jamaale oo xubin sare ka ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar isla markaana ah gudoomiyaha dalladda horumarinta bulshada Soomaaliyeed waxa uu sheegay inay saxaafadda tahay seef laba af leh marba ay dhanka ay doonto wax u goynayso laakiin ay muhiim tahay in looga faa'iideysto dhanka wanaagsan. saxaafaddu waa seef laba afley ah dhankana wax bay ka goysaa dhankana wax bay ka goysaa marka waa inay ugu dhawaadaan dhanka wanaagsan waa inay ugu dhawaadaan si Ilaahay uga abaal mariyo. haddii laakiin ay u gudbaan in maaragtay ay dhanka xun ay u shaqeeyaan taasina waxa waaye dhibaatadeeda ay leedahay. waxaana dareemaynaa inay noqonayso mid lagu cadaab mudanayay maxaa yeelay waxay yiraahdaan dadku xurriyatul qowl wax la yiraahdo ama xurriyatu saxaafa. qof bini aadamka xur iska ma ahan xurnimadu mudlaq ma ahan waa muqayyad. بعض الأحيان qofku wax baa ka xadidan wax baa loo diidayaa waxna waa loo ogolyaa. Mahad Maxamed Salaad oo ah xogayaha guud ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa sheegay waxa ay tahay xurriyadda saxaafadda. saxaafaddu aysan dhexdhexaad ka noqon karin sida dalkaaga iyo diintaba dabcan sida ay ka dhawaajiyeen oo runtii arrin aad muhiim u ahaydna dabcan kaalin lagu xasuusto xilliyadii haddeertan u dambeeyey wixii ii sheeg 2006 loo gaaray ee dalka Soomaaliya dabcan oo gala gacan cadow inkastoo dadku wada ay leedahay ma aysan hayn dowladda la difaacayo way dhici kartaa laakiin dabcan qof walba asiga arrintiisa xor ah inuu cabiro dhankay ula muuqato ayaan dhihi karnaa runtii kaalin mugle inay ka qaateen sidii ummadda oon loo gaarsiin lahaa khabarka dhabta ka jira dalkii. sidoo kale waxaa meesha ka hadlay tifitiraha guud ee website-ka Daniel Cabdiraxmaan Macalin Xuseen oo dadka habeenkii xalaytaha u sheegay qaabka loo aamini karo wararka ay qoraan website-yada iyo macluumaadka ay xambaarsan yihiin. waxa uu yiri وبين بدن لكن أنا جم ليه ما إنه معناها شبكتي إنه بين بدن تاي لكن وحلا جري لو قف مكت قص بسوق مركا ضد بدن أو نتاجرتن ويجران ضد بدن أو كانوا نجسوا هرجيدن ويجران معناها تاسي وحي كنسا شخصية قفك أو بني آدم كهدي أو واحد نقطة معناها وعلى دربان أدا سمستي هديله تمانية محلات حوالي ده معناها دربان كدا سمستي إلا تما كانوا قالوا سمي
marka anagana haddiina la dhaho ama nala dhaho waa been badan tihiin haddiina la dhaho waa run badan tihiin macnaha waxaa diyaar u nahay had iyo jeer inaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan in aan qancino ama aan u soo bandhigno wararka ugu dambeeyay ee ka dhaca dalka Soomaaliya. xafladan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay aqoon-yahano ay ka mid ahaayeen Cabdiraxmaan Guray, Cabdiraxmaan Maxamed Cumar Dalxa, Cabdiraxmaan Madaxi oo ah nin dhalinyaro ah oo qoraa ah. dhammaan dadkii xalayta xafladan ka soo qayb galay wajidooda waxaa laga dheehan karay jacaylka ay u qabaan saxaafadda Soomaaliyeed. Mahad Carab Wali, Telefishinka Universal Alqaahira.